السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن صاحب بيال أصحابته هالكن كحرن بشير دقنا دمانتين بوان إدين سلامة يا حلي كستو إدين تهابهابين إيو مالنبو وحان رجينا يا إنا وقت قروح بدن قادنا يسان طبعا وحمو قالاه ما نسوق لنين مدوينكي قدام بيي رنهانتي إن آدان وقعور دارنا يا مشغول جراء ودي لكن إن شاء الله وحان كده دالي دونا سيدي أن وحيابا عصب أن إدين كوغسو قدبين لها haddaba asxaabta cusub ee channelka ku soo biiray aad iyo aad aan idinkaaga mahadcelinayaa. asxaabta kale hore u joogtana way ku mahadsan yihiin sida quruxda badan ee aan muuqaalada halkan aan usoo dhigno aad u daawataan. haddaba maanta waxaan idin hayaa qiso aad u qurux badan. waxaana doonayaa inaan idinkaaga sheekeeyo afrikaankii ugu horeeyay ee waxbarta Afrika oo gumeysi ku jirta. haddaba maxaad ka taqaanaa sheekadii George? barigii hore markii ay gumeystayaashu soo galeen qaaradda Afrika waxaa jiri jiray in dad Afrikaan madow ah laga ganacsan jiray iyagoo loo iibgeyn jiray wadamada Yurub iyo Ameerika si looga faa'iideysto xoogooda. maalin maalmaha ka mid ah ayaa dadkii loo raray Mareykanka waxaa ka mid ahaa nin iyo naagtiis oo kasoo jeeday dalka Zimbabwe. odayga iyo islaanta waxay ka shaqeyn jireen beer uu lahaa nin qayb ahaan u qaatay lamaanahaasi. muddo markii ay beerta ka shaqeynayeen ayaa waxa ay isku dhaleen wiil Zimbabwe ah oo ay habartaas iyo odaygaas ay iska dhaleen oo xaqiiqdii ahaa dad aad u madmadow oo Afrikaan asal ahna ahaa. wiilkiina waxay u bixiyeen magaca George. waa uu koray, waa uu weynaaday sanado badan kadib waxa uu bilaabay isna inuu hooyadiis iyo aabihiis kala shaqeeyo taasoo ay ka hayeen saddexdooduba shaqooyin aad u culus oo bini'aadamku aysan qaban karin. muddo kadib George ayaa la yimid fikir aysan hooyadiis iyo aabihiis aysan la imaan, kaasoo ah inuu isweydiiyo su'aasha ah waxa isaga ka dhigay ninka ka shaqeeya beeraha iyo shaqooyinka culculus oo kuwa kale ee cadaanka ah ay ku raaxaysanayaan dabaqyo sare iyo nolol aad u wanaagsan oo waxbarasho leh haddii ay noqoto tiknoolajiyad, caafimaad iyo wax kasta oo nolosha aad u fiican ah. George su'aashaas markuu isweydiiyay waxa uu soo baxday in sababtu ay tahay in ay cilmi ay ku gaareen heerka ay joogaan iyaguna ay cilmi la'aan reebtay oo ay heerkaas dhigtay. kadib waxa uu go'aan ku gaaray inuu waxbarasho bilaabo. kadib waxa uu soo qaatay buug iyo qalin. waxa uuna go'aan ku qaatay inuu iskuul tago. waxa uu soo galay iskuul ay ku dhex jiraan arday yar oo ay dhiganayeen iyo macallimiintooda iyo maamulkooda. ninkan la soco waa nin Afrikaan asal ah oo Zimbabwe ah oo aad iyo aad Afrikaannimada ugu muuqanayso. dadkaas Mareykanka joogana waa markii ugu horeysay oo dad madow ah ay arkaan. markii uu iskuulka soo galay ayaa waxaa hal mar kala cararay ardaydii oo dhan iyagoona hal mar sidii tusbax kala firdhaday oo kala cararay. ninkii George ahaa waxay ku noqotay xaalad cabsi ah. dadkiina waxay u haysteen inuu yahay gorille ama daanyeer. kadib waxaa meeshii ka dhacay muran iyo buuq iyo kala carar iyo ciyaalkii cadaanka ahaa oo aad uga baqay muuqaalkiisa. waana xaalad culus markii ay dad bini'aadam ahi ay ka baqayaan muuqaalkaaga. waa xaalad aad u murugo badan. George waa lagala hadlay maamulkii iyo macallimiintii, laakiin waalidkii ardayda dhalay waxay ka codsadeen maamulku inaysan ogolaan ninka maadaama uu ardayda ka cabsanayaan oo ay ka baqayaan. si kastaba ha ahaatee ugu dambeyn waa loo ogolaaday inuu iskuulka dhigto. hase ahaatee waxaa lagu yiri Georgio waxaad leedahay ardayda goobtan wax ku baranaya xaq ay leeyihiin barkooda. waxaana ardaydii loo sheegay in arday walba marka uu soo galo albaabka uu ku jiro George inuu ku leeyahay hal feer iyo hal suxul iyo macallimiinta oo waxay doonaan ku dhufanaya. intaas oo jug ah ayuu ku dhameystay 12 sano oo iskuulkiisa sare ah. intaa kadib markii uu dhameystay iskuulkii waxa uu go'aan ku gaaray inuu barto cilmiga loo yaqaano cilmi nafsiga. waana cilmi aad muhiim u ah qofka bartaana uu noqonayo qof ka gudba inta badan dhibaatooyinka, waxna fahmi kara dadku waxay la damacsan yihiin, fahmi kara oo qiimeyn kara dadku waxa ay rabaan iyo waxa ay fahansan yihiin si uu isaga difaaco dhagartaas oo dhan. waxa uu cilmigan baranayay 2 sano. markii uu dhameystay ayuu go'aan ku gaaray inuu galo jaamacad. kadib waxa uu jaamacad u aaday gobolka California oo ah gobolka ugu weyn Mareykanka. waa gobol aad u kulul. kadibna waxa uu soo qaatay alaabtiisii
waxa uu damcay inuu wadada ka gudbo si ay u qaadaan baabuurta u socota gobolka California, laakiin nasiib daro wax baabuur ah uma aysan istaagin iyagoo ka baqaya haddii ay ninkan California geliyaan in dawladdu qabsato. maxaa yeelay waxaa la og yahay haddii gobolka California la geliyo inay arday badan iyo caruur badan ka cabsanayaan, sidaa darteed gaari walba xowli ayuu ku dhaafayay. waxa uuna go'aan ku gaaray inuu lugeeyo. waxa uu lugeynayay muddo aad u fog, xaqiiqatan isaga oo boor iyo haraad ka muuqda ayuu ugu dambeyntii gudaha u galay gobolkii California. waxa uu galay jaamacad lagu magacaabo California, waana jaamacadda ugu weyn gobolkaas. jaamacaddii markii uu soo galay waxaa hal mar kala cararay ardaydii goobta joogtay iyagoona ka baqaya inuu yahay bahal cunaya, waana arrin markaas argagax badan. kadib markii la kala cararay waxaa loo sheegay inuu ninkan yahay bini aadam, xaqna u leeyahay inuu wax barto. hay-ada ayaa kala hadlay, haloo ogolaada ayaa la yiri, laakiin waxaa jaamacadda dhigan jirtay gabar uu dhalay gudoomiyaha gobolka California. gabadhii ninkan George ah markuu albaabka ka soo galay ayay basuuxday. kadib muddo markii la rusheynayay gabadhii way soo kacday. gabadhii waxa ay tiri, ninkaas jaamacadda haddii uu dhigto oo uu soo galo anigu dhigan maayo. gabadhana waa gabadh aad loo ixtiraamo oo laga dambeeyo hadalkeeda, maxaa yeelay waxaa dhalay gudoomiyaha gobolka California. kadib gabadhii waa lagala hadlay, waana laga barbariyay. war iska daabaa lagu yiri. ugu dambeyn waxay ogolaatay in loo ogolaado inuu jaamacadda dhigto. waxayse shardi ka dhigtay in laga qariyo wejigiisa, haddii kale waxay sheegtay in ay u sheegayso aabaheed jaamacaddana la xirayo, maxaa yeelay gabadha waxaa dhalay gudoomiyaha gobolka California. maamulka iyo macallimiintii waxay ku wargeliyeen inuu wejigiisa daboolo inta uu jaamacadda ku jiro, haddii kale gabadha uu gudoomiyaha dhalay ay aragtidiisa ay ku suuxeyso. xaqiiqatan waa gumeysi noocii ugu weynaa uu isagu George u marayo sidii uu wax u baran lahaa iyo inuu heer gaaro. kadib waxaa loo sameeyay jabaan, markaas ma jirin maskaraati, waa muddo aad u dheer ka hor. kadib waxaa loo sameeyay jawaan indhaha iyo sanka ka furan. gobolku waa gobolka ugu kulul Mareykanka, halkaas wax ka bara ayaa lagu yiri. muddo fara badan ayuu wax ku baranayay, isagoo aad u dhididaya ayuu sabuurada wax ka qoran jiray, taas oo ay ku qasabtay gabadhii gudoomiyaha gobolka California, taas oo aan ogolayn inay aragto wejigiisa foolxumo daraadeed sida ay sheegayso, haddii kalena ay suuxeyso. ardayda kale markay banaanka u baxaan oo ay wax soo cunayaan, isaga waxa uu aadi jiray hawada si uu u soo leersado, maxaa yeelay muddo ayuu ku jiray jawaan, taas oo ay ku qasabtay gabadhii uu gudoomiyaha dhalay, taas oo sheegtay in haddii aragtidiisa ay aragto ay suuxeyso. muddo markii arrintaas uu ku jiray George waa uu fakeray, waxa uuna ku fakeray inuu adeegsado cilmi nafsigii uu bartay sidii uu gabadhan isaga difaaci lahaa. gabadhan isagama difaaci karo inuu la dagaalo, isagama difaaci karo inuu caayo, waayo heerkiisa waad u jeedaa. waxa uu isaga difaaci karaa cilmi nafsigii uu bartay oo kaliya. kadib waxa uu soo ogaaday gabadha qolka ay ka degan tahay jaamacadda. waxa uu sidoo kale soo ogaaday goobta waraaqaha loogu rido. waagaas ma jirin taleefano iyo kombiyuutar iyo qalab kale, waraaqo ayaa wax la isugu qori jiray, qofkana meel ayaa loogu ridi jiray. kadib markii uu meeshii soo ogaaday ayuu si qarsoodi ah u soo qoray waraaqo jacayl saameyn badan ku reebaya qofka bini'aadamka qalbigiisa. waraaqahaas markuu qorayay waxa uu kala hareeyay koobi caadi ah ma jirin. waraaq walba marka uu qorayo mid kale oo la mid ah oo lafar ah ayuu qorayay oo uu dhiganayay qolkiisa, isagoo og waxa imaan kara, maxaa yeelay waa nin cilmi nafsiga bartay. kadib waraaqo jacayl ah oo saameyn leh oo qalbigeeda taabanaya ayuu ku qoray. waraaqahaas uu qorayo ma ahayn oo kuma qorin waxay ka socdaan hebel iyo hebel, balse waxaa ku qornaa waxay ku socdaan hebel, marka lama fahmi karo cidda soo qoraysa. kadib boostadeedii ayuu ugu ridaa maalin walba oo khamiis ah. markii ay ogaatay oo ay waraaqii akhrisay way la yaabtay, saameyn ayayna ku reebeen gabadhaas. kadib maalinkii labaad ayuu kuwo kale ugu riday isagoo cidna aysan arkin. kadib maalin walba oo ay aragto waraaqo lagu soo rido waxay aragtaa waraaqo kasii qurux badan waraaqihii hore oo ka farshaxamaysan, kaasoo qalbigeeda soo jiidanaya. waxayna u qaadatay in ay ka imaanayaan
mid ka mid ah ardayda jaamacadda ee caddaanka ah oo iyada jeclaaday, laakiin ma ogo inuu soo qorayo midkii ay ku sheegtay in foolxumadiisaba ay la suuxeyso ee George. Intaas kadib gabadhii saameyn ayay ku yeesheen waraaqahaas, waxayna ku kaliftay in gabadhii jaamacadda ka soo dahdo. Muddo markay soo daahaysay, markii dambe waxay bilowday inay jaamacadda maalinna timaado maalinna ay gooso, iyadoo ku mashquulsan waraaqahaas. Isla markaasna waxay maskaxdeeda ka guuxaya inay ogaato ruuxa soo qoraya waraaqahan. Nasiib daro kuma aysan guuleysan inay ogaato cidda u soo qoraysa waraaqaha. Maalintii dambe waxay gabadhii keentay inay jaamacadda ka harto, iyadoo uu qalbigeeda uu ku abuurmay jacayl qof aan la aqoon oo waraaqa u soo qoraya. Xaqiiqdii George waraaqaha uu adeegsanayo waa kuwa ka culus kana khatar badan hubka nuclear-ka oo qalbigeeda tooganaya, waayo waa nin cilmi nafsiga bartay wax badanna yaqaana. Maalinkii dambe waxay bilowday inay jaamacadda ka harto gabadhii. Waxay maamulkii u sheegeen in George iska saaro jawaanka, maxaa yeelay gabadhii qasbi jirtay lama hayo. Arrintaas aad buu ugu farxay George, wuuna nafisay. Arrintaas guul ayay u noqotay, isla markaasna gabadhii intay waxbarashada ka reebto isku dayday, isagii ayaaba ka reebay. Arrintaas aad buu ugu farxay George, waa uuna nafisay. Arrintaas guul ayay u noqotay, isla markaana gabadhii islahayd waxbarashada ka reeb ayuuba isaga waxbarashada ka reebay. Gabadhii waxaa ku lixaadsamay jaceylkii, wuxuuna isu bedelay xanuun. Aabaheed waxaa ku cuslaatay xaaladda gabadhiisa, aad ayuuna u naxay. Waxa uuna geeyay dhakhaatiir fara badan oo gobolka California iyo adduunkaba ah. Waxaa loo sheegay inuusan ahayn xanuun jirka ah, waxaana laga qaaday dheecaano fara badan, balse waxay dhakhaatiirtu isku raaceen in gabadhu waxba aysan qabin. Markii dambe waxaa loo geeyay dhakhtar Faransiis ah. Dhakhtarkii waxa uu sheegay in gabadhan wax ay ka maqan yihiin. Haddii ay hesho wax ka maqan gabadha, way caafimaadaysaa. Kadib odaygii waxa uu u tagay gabadhiisii, waxa uuna weydiiyay waxa ka maqan. Waxa ay sheegtay inuu jiro wiil u soo qori jiray waraaqo, isla markaana uusan sheegin cidda uu yahay wiilkaas, oo qalbigeeda hantay ayna rabto wiilkaas inay hesho. Haddii ay wiilkaas heshana, waxay aabaheed u sheegtay in wax badan iska bedelayaan. Xaqiiqdii cudurkaas waxa uu ahaa cudur inay u dhimato ku sigtay. Aabaheedna uu aad ugu walwalsanaa. Waxa ay ku soo laabteen odaygii iyo gabadhiisii magaaladii California, waxa uuna iclaamiyay in lagu qabto xaflad kaniisadaha iyo jaamacadaha. Waxa kaliya uu raadinayna waxa ay tahay wiilkii waraaqadaha u soo qori jiray gabadhiisa, si gabadhiisa nolosheeda uu u badbaadiyo. Ugu dambeyntii waxaa lagu qabtay xaflad si heer sare loo ogaasimay California, iyadoo ay ka soo qayb galeen arday badan oo caddaan ah, maamulka heer gobol ee dowladda, heer jaamacadeed iyo marti kale oo madax bannaan. Iyada oo uu George ka mid yahay ardayda jaamacadda, ayaa haddana waxay macallimiinta ay ka codsadeen inuusan istusin martida meesha isugu timid, waayo waxaa laga yaabaa in lagu canaanto oo la dhaho qofkan ma idinkaa meesha soo geliyay. Waxayna geliyeen